qur'aanka ayaa lagu sheegay hooyadii rabtay inay ilmaheeda naas siiso inay 2 sano dhammaystiran naas nuujin karto waxaa laga helaa faa'iido caafimaad oo hooyadii iyo ilmihii labadiiba caafimaad ay ka wada helayaan waxaa ka dhalato kale naxariis iyo kalgacayl hooyadii iyo ilmihii u dhaxaynaya waa faa'iido bulshada dhankeeda oo ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo garaadkiisu sareeyo oo markasta wax soo saar ku fakaraya bulshadiina wax soo saar u noqonaya waa faa'iido dhaqaalo qoyskii dhan dhaqaalahoodii ayuu faa'iido u yahay oo meel kale lacag lagu bixin maayo in caano iyo lagu soo gado ilmihii caafimaadkiisa sidoo kale wuxuu noqonayaa ilmo caafimaad badan aan markasta u baahanayn in dhakhtar iyo daawooyin kala duwan loo soo iibiyo marka naas nuujintu waa faa'iido dhinac kasta ina ka taabanaysa waxaan ku boorinaynaa mar kasta in la joogteeyo naas nuujinta laguna la taliyo dadka oo dhan